Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan. Ka hor intaynan guda galin muuqaalka casharkani, waxaan kaa codsanaynaa inaad like inoo saarto. Waxaynu qaadan doonaa maadadeenii farmakolojiga casharkii 8aad. Casharka kani maanta waxaynu ku baran doonaa qodob aad muhiim ah. Qodobkaasoo noqon doono daawooyinka loo isticmaalo xiiqda ama neefta ee loo yaqaano drugs for asthma. Qodobada aynu casharkaynu ku baran doono maanta waxay noqon doonaan inaynu introduction ka bixino cudurkani loo yaqaano asthma ama xiiqda, iyo qodobka labaad ee noqon doono inaynu sharaxno daawooyinka loo isticmaalo in lagula tacaalo cudurka kani ee loo yaqaano xiiqda ama neefta basi qof walbaba ay u taqaano. Waxaan rajayn doonaa ilaa intaynu ka gaari doono dhammaadka casharkani inaad inala socon doontid biidnillaahi jalla wacalaa. Asthma cudurkani waa cudur saameeya inta badan basanbabada, waxauna ka mid yahay cudurrada inta badan carruurta ay la daalaa dhacaan iyo dadka waaweynba. Cudurkani waxa uu inta badanba ku badan yahay markii ragga iyo dumarka loo fiiriyo 30% xagga dumarka, taasoo markayna tusinaysa in cudurkani dumarka iyo ragga marka loo fiiriyo ay u nugul yihiin dumarka. Definitionka cudurkani haddaynu u gudubno, asthma waxaa loo yaqaanaa inay tahay chronic airway disease, cudur ku dhaca marinada neefta, khaasatan bronchioliska, ku keena inay noqdaan kuwo constricted ah, isku caburma, taasoo marka qofka lagu arki karo astaamaha ay ka mid yihiin in qofkii uu noqdo mid ay ku adkaato inuu neefsado, qufac, in qofka uu dareemo caburnaan dhanka xabadka ah, iyo in qofka lagu arko neefsasho degdeg ah. Markani aynu ka hadalno daawooyinka loo isticmaalo in lagu daaweeyo cudurka kani ee neefta. Daawooyinkani waxaa loo qeybiyaa 2 qaybood. Labadaasi qaybood oo kala ah kuwa loo yaqaano quick relief iyo kuwa loo yaqaano long term relief. Daawooyinka soo gala qaybtani quick relief medicationska waxaa ugu caansan salbutamol, albuterol, lamotrigine. Saddexdani daawo ayaa loo yaqaanaa SABA drugs ama short acting beta 2 agonists. Waa kuwo la falgala receptorka loo yaqaano beta 2, kuwaasoo activate garaya inuu sameeyo broncho relaxation, oo ah in bronchial smooth muscle-kii muruqii ku jiray bronchioliska smooth muscle-ka ahaa uu sameeyo relaxation. Halka daawooyinka soo gala long term relief medicationska ay yihiin labada daawo ee kala ah salmeterol iyo formoterol. Labadani daawo marka la isku daro waxaa loo yaqaanaa LABA drugs, oo micnaheedu tahay long acting beta 2 agonists. Sidoo kale iyagana waxa ay la falgalaan receptorka loo yaqaano beta 2, kaasoo ay ka dhigaan inuu noqdo mid active ah, qabtana marka hawshay ahayd relaxation. Waxaa kaloo soo raaca daawooyinkani long term relief medicationska daawooyinka loo yaqaano inhaled corticosteroids oo loo qaato hawo ahaan. Daawooyinka quick relief medicationska ama si kale haddaynu u niraahno daawooyinka loo yaqaano SABA drugska. Daawooyinkani waa kuwo jirka ula falgala si dhaqsi ah, waqti gaaraya 5 ilaa 30 daqiiqo gudahood ayay shaqadooda ku bilowdaan, waxayna baaqi ku sii ahaadaan jirka muddo 4 ilaa 6 saacadood. Side effectska ay leeyihiin daawooyinkani waxaa ka mid ah wadne garaac, jirka oo ay ku yaraadaan elementyada qaar sida hypokalemia oo ah in potassiumta jirka ku yaraato, iyo hypomagnesemia oo ah in jirka ay ku yaraato magnesium.
Intaan iyo kuwo kale ayuu qofka isku arki karaa marka uu qaato daawooyinkani saba drugska loo yaqaano. Daawooyinka loo yaqaano laba drugska. Daawooyinkani waa kuwo jirka inay la falgalaan ay ku qaadato waqti aad u badan. Waxa ayna jirka baaqi ku sii ahaadaan muddo ku dhowaad 12 saacadood. Daawooyinka corticosteroidska ee soo gala qaybtani long term relief medicationska waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano fluticasone, budesonide, beclomethasone. Saddexdaasi daawo ayaa loo qaataa daaweynta dheer ee cudurkani neefta marka la rabo in la daaweeyo. Daawooyinka kale ee beddelka u noqon kara daawooyinkani waxa ay kala yihiin leukotriene modifiers iyo daawada kale ah coromolin. Daawooyinkani ayaa la doorbidi karaa marka la waayo daawooyinka dooqa koowaad ee lagula tacaalo cudurka kale. Waxaan halkani kusoo afmeeraynaa casharkeenan maanta. Casharka xigeenteenu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum.